carwada soo bandhigida shaqooyinka waa carwadii ugu horeysay uguna balaarneed ee lagu qabto gobolada Puntland waana madan ay ku wada kulmi doonaan shaqeeye loo shaqeeye iyo shaqadoon boqolkiiba 70 bulshada Soomaaliyeed waxay da'doodu ka yar tahay 30 sano dhalinyaradaas boqolkiiba 67 oo ay da'doodu u dhaxayso 14 sano ilaa 29 waxa ay yihiin shaqo la'aan ujeedooyinku waa in la yareeyo shaqo la'aanta dhalinyarada iyadoo oo la abuurayo 50,000 oo fursadood iyo in la fududeeyo baahida shaqaaleysiinta ee shirkadaha maxalliga ah iyo baahida shaqo ee shaqadoonka deegaanka ah waxay qabanqaabiyaasha carwada bandhiga shaqooyinka aad ugu fududeynayaan shirkadaha inay helaan shaqaalahooda si fudud ayadoo markaas soo jeedinaysa boqolaal qof oo shaqadoon ah oo markaas ka soo qalinjibiyay jaamacadaha ama lehba xirfado kale in ka badan 30 shirkadood ayaa ka soo qayb qaadan doona carwada shaqooyinka ee Garow 2017 waa fursad qaali ah oo kuu suurtagelinaysa inaad hesho fursad shaqo ama dad kula shaqeeya oo xirfad iyo aqoon sare u leh baahidaada shaqo waxaa iska kaashanaya sanduuqa madaxa bannaan ee Fursad Fund iyo madbacadda Council Publishers soo qayb gal wanaagsan